هاي كل جيل شباب صدوا هذا أو كسروا هذا سومال كريستيان تي في وحن هاي محيط إكس مسلمز فافية مسيحية ده ما أنت وحمرتنو أفائسة أو أهولاشين عن جعلنا هاي يهبرت هذا قالي صاحبتنا أنت أنا وجود قلنا مركو جوه الرسواني وعشاني جابوا ينكي شين جابوا صدوا أمور ما تسند شاني أربعة كبركيو waxaan rajaynaynaa inaa kulligiina wada fiicantihiin oo markaan waxa aad iyo aad farxad noogu ah inay caawa ama waqtigan la joogaa ay noo joogto walaal aad qaali noogu ah walaasheen aadka aan ugu faraxsan inay nala joogto caawa Faisa Goonyar ayaa nala joogta shaaniya يا فايسة غونيرة أنا كل وحنا هيدا أد بنسكوي قانا أو محيط واحد بدن صاحب أها أو ربي محيط ولال نقدر جاي سكست طبعا ولال ونهاي والد سكون هاي صاحبنا هاي قف عاد بدن وجعلنا هويان قاركين وحلقة إنها هرو وارتين قاركين إذن ولجين أركين كل ستهين وحويان عاو وحنا لقي بسنة سام رقاتي جدا مركب وحن جعلنا إن إذا كنا سود ويسان لما تين سود وهذا دتك ماشي فدي ولا لها لما ماشي سكوي سود وهذا يا إذا لنا المقع ربعي سمسيح سود وهذا الشلام نبدأ كركين هاتو waxaan soo dhaweynaynaa maxay ahayd Faisa Goonyare ama Faith Goonyare Facebook sida loogu yaqaano haba macaanto welcome to Somal Christian TV ku soo dhawaaw maxay ahayd waxaan rabnaa inaad dadka isbartid xoogaa yar iyo qofka tahay soo gal soo dhawaaw waa mahadsantihiin Shiina iyo Shaaniya iyo walaalaha ku jira iyo Soomaali weyn soo dhawaada anagoo Soomaali masiixiin ah waa salaamena ربنا يجزيك يس ما سنت فائزة ولا لها دمان ووقت آد قالين وقتها وقتين حاضر كأه ولا شيء أنا لقيت صندوق مرقات فركيدة إيو نولش هذا إيو مسيحية ده إيو وحيو بدن أو كل حجرة مركب وحن جعلان لهن إن فائزة قوية وحي نولش تعرف نمدي ده إيو إسلام نمدي وصقرتي إيو وقت جدي مركب يرى mahadsanid Shiino aniga markii aan yaraa waxaan ku soo koray Soomaaliya magaalada Muqdisho yaraantaydii halkaasaan joogay familkaygana waxay ahaayeen famil muslimiin ah anigana muslimnimaan ku dhashay sida dhaqanka Soomaalida uu yahay muslimnimada wax lagu dhashay weeye ma aha wax adood صح halkaasaan yaraantayda ku koray muslimka dadkayga dhan muslim bay ahaayeen faamiladeena dhan muslim bay ahaayeen waxaa idin wadaan marqaati aad u qurux badan runtii waad ku barakoobi doontiin arrintan Faisa arrimaheeda markaa dhageysataan يا فايزة وحنو مقطع مركا إن كسر كرتي سوماليا إن ودنكي إسلام دتكاجي إسلام هاين أدنى أقف مسلم هاي وكسر حنولي وكسر حكرتي محا أوجشك سي إسلامك محا أوجشك سي إسلامك شكي وكو إمادة محوها كشك سي إسلامك ما عرفت أتقفك اللي ما بدلك وحي قفك إنه ويسع معها قاعدته عمل مرها لاحر قماري وحاس لكن الريالتي وحوا إلهي دتك قلبي وكلها الله قلبي جا مرك عني وحن كوجا مركز طبعا غيره حتى أوجيهين الإسلام كجد ونعكسن ونعهين عن أشياء جد مرة هيا اللي جرى جد كان جد سحسن معه جد كان جد سحسن معهن يعني هان قلبي جاي وكسر بحياة مركب واللي برش جرين جرو حلي جرنا يا فحصلين الإسلام كجد ونعكسن وهي وجد كليه أو إلهي لو قلت كرو هدم بابين مركب قف بعتها موقتها مدة هذه لأن هذا كله إن جد كإسلام كوسناهن جد صحة هدو جد صحة وصن أهين جد كلو صحة يا جرا مركا بارتان قفك إنه سمي عادو في عنتها قفك مركو الشك سوق لنا الشك وعلي هذا يسؤالها وبالله وأقونته يبالله وحريته مركو عن أمسنا هاي وضد كسعتي ووضد ضدنا إسامرين ضدك إنه كشكيان إسلامك وحنا كينايو بيفرق وحلي رأي دي دقح لو تورو وين دقاقان سومالي إيه اسكفر ليا وحاول ماتي إكستريمز مكو أو ديمه كو عددك مركي دولة دي عدد كويا وحي كان وجهي ربطة هاي إسلامك oo dadkii dhahan ilaa wala sidan uu labista ilaa wala saan noqda ilaa wala waxa sameeyeen ayaga waxay iska dhigan ilaahiyo ka soo horeeya ilaah laftigiisa marka Faisa waa arin aad wanaagsan inaad su'aal isweydiiso qof walba oo dhageysanayna hadii aad muslim tahay isweydii su'aal isweydii jidka ku socotid ma jid sax ah isweydii hadaa dhimato ma jannada tagaysaa isweydii
kitaabka aan rumaysan tahay af Soomaali ku soo qaado akhri dad badan af Soomaali ku akhriyay oo gartay oo fahmay waxaas inay wax ka qaldan yihiin marka gaartay habar oo tiri maanta wixii ka dambeeyo maaragtay islaamka waan ka baxayaa horta waxaana aan dadkeena ka maqan oo annagoo dhan inaan isweydiino ay tahay sax qofka dadka masiixiyiinta ah oo masiixa qaatay ma ahan dad maxaa la yiraahdaa iyaga inta islaamkii xoog iyo awood ay leeyihiin intay ku naceen ay iskaga baxeen ma ahan dad ilaahay u yimid oo ilaahay iyagoo istarakalkaas aniga aan ku jiro kale iskaga jira baa ilaahay u yimid waxaan su-aasha sidaa uu shiino sheegay su-aal baa waxaa kuga adkaanaya marka hore in waxaa islaamka inaad rabtid in kale laakiin waxaa kugu dhalinaya waxa weeye waa ilaahay صح ilaahay baa kugu dhalinaya markaad qalbigaaga ka qiratid inuu ilaahay aad doodoontid ilaahay kitaabka waxaa ku qoran doodoon waad helaysaa waarun aamin aad doodoontid waad helaysaa ilaahay qofkii kastoo yiraahdo waxaan waa igu adkaadeen haddii islaamka jidka ka qataa ilaahayo ilaahay jidka xaqa igu toosi qofka wax ka dhumaayo malaha ma ogtahay hadduu ilaahay doonayo qofku waa inuu ilaahay yiraahdaa ilaahu ii imow ilaahu qalbigayga ii imow ilaahayo waan kuu rabaa marka aniga markii ay dadkii su-aashaada haddaan usoo noqdo markay dadkii ay igu yiraahdeen islaamkii waa saan anigana aan islaamkii iyo isku kay qaban la-yihiin xaqnimadii baan ilaahay baryey oo waxaan dhahay ilaahayo qalbigayga bedel ilaahayo i naxariiso ilaahayo muuji ilaahayo maaragtay ilaaha tahayba meeshaas isku kay muuji baan tegey weli waxaan ku ducaystay masaajid dhexdiisa subax aroortii anoo joogo markii igu horreysay aan rabay islaamkina aad ugu ilaahay nagama harayo ilaahay aan wax oo carshiga iska fadhiyo oona dadka u imaanin ilaahay dadka wuu la joogaa xorriyad siiya haddaa qofma tahay xorriyadaada kuu siinaya alxamdulilah dawada laakiin haddii aad qof ilaahay raadinaya aad tahay dee waa helaysaa nooca aad rabtid qof kastaba qofka soomaaliga waxaa u malaysaaba aniga waa la yaabay qofka asaga iyo qabrigiisa asaa iskale qofka asaga iyo caqiidadiisa asaa iskale wixii u roonna asaga jirta inta ilmaha markii la korinayo uu yar yahay na waxa waaye ilaahay baa ilaalinaya weynaadana xor buu u yahay adduunyada qofka inuu wixii u roon ilaahay inuu raadsado qofku waa wax caadi ah dunida adduunka ilaahay jira waa wax normal ah marka aniga tayada waxay ahayd bacdamaa meesha joogay ilaahay wixii isku kay qaban waayo aan ducaystay waan meel anoo iska joogo oo shaqo ku jira uu ilaahay wiil ii soo diray asxaab baan ahayn oo isnaqaanay saaxiibaan ahayn marka laakiin inuu islaam yahay baan u aqaanay ma aan u aqoonin magaciisa inaan sheego ma doonaya marka waxaan isku naqaanay laba liberaala inaan nahay islaamka baan isku naqaanay marka ma aan u aqoonin laakiin waxyaalo kale wiilkii baa meesha shaqada igu yimid wuxuu igu yiri weli meesha aan ka shaqeynaa meel islaamitish bay ahayd islaamku ku badan yahay marka waxaan dhahay wuxuu igu yiri maxaa u tukan weyse dadku way tukanayaan wuu ii yimid markaasaa waxaan ku dhahay bal markaasay tiyaas anoo islaam ah baa waxaan ku yiri walaalo aniga iguma socota hadda ma aragte oo ma aragtay aan ilaahay igu xirayn iguma socotaan dhahay ka joojiyey haystaan aan ku dhahay waxaas aniga ma igu socdaan aniga waa u sheegi jiray berigan xataa islaamka aan ahaa dadku waa u sheegi jiray runtii waxa aan qabo waa u sheegi jiray sababta qofku soo gatay ma lahan
qof ma aragtay adiga qabriga kula gelaya ma jiro qofku waa inuu si daacada u noolaadaa ama masiixi ahow ama muslim ahow ilaahay kolley wuu kula xisaabtamayaa wuu kuu jeedaa abaa aaminsanaa wuxuu igu yiri okay adhow markaa shaqada ka baxdid wada sheekaysan karnaayo maxaa la dhahaa su-aalaan qabaayo wada hadli karnaayo waxaan dhahay dee wiilka waa isnaqaanay wuu ogaa inaa ani xaas ahay inaan maaragtay maxaa rabaayo gooni ah oo duhurkan macnaa markaa shaqada ka baxdi waa waqtiga inta guriga tagtid wuxuu igu dhahay ilaa inaan isla hadalno hayaan dhahay wiilka waa soo raacnay baabuur watay waan soo raacnay meelaan fadhiisanay wuxuu igu yiri walaaley jidka intaa soo soconay wuxuu igu yiri walaaley maxaad islaamka salaadiisa u nacday marka walaalo waa sheeko dheer laakiin islaamka aniga si kastaan u fiiriyey wax kastaan fiiriyey waan isku dayay intii tabartay ah ilaa yaraantaydii anigu igu adag yahay laakiin dee igu rasbati gareen maxaa islaamka ka rabtaa aniga asla wiilkaa muxuu islaamka ka rabaa asana isleeyahay qof dhuumanaysaa isleeyahay mogta baarayaayo dadka hadda waa saasaa loo kala dhuntaa markaasa waxaan dhahay walaalo aniga dee waa saa qofkaasaan ahay runtii islaamnimada waa ku jiraa laakiin ma ihi qof adeecada ma ihi alaa kulli xaal so adiga wiilkii wuxuu igu yiri walaaley hadduu ilaahay aad ka weysay xifnimo islaamka maxaad ilaahay u bari weysay adduunka oo bari weysay ilaaha adduunka oo dhan diimo badana ilaah ka jiro kristana ka jiro meeshuu ilaahay jiro kaygii baan qaati ka taagana iga kale ilaah kale maaragtay ilaahaygan islaamka keliya inuu jiro kuwa kalena hoolaha kale inuu wataa umalaynayo moogta maana ogeyn runtii diimahan dhahay wiilka isoo wacay wuxuu igu yiri ma barido ilaahay ma weydiisa mayaan dhahayo sidee baan dhahayo inkasuu wuxuu igu yiri jilbaha dhulka dhigo ilaahay bari maxaa la dhahaa ana waa aaminsanaa ilaahay in loo sujuudo oo la baryo oo waan aaminsanaa marka waxaan dhaha waaye walaalayaal markaa ilaahay meeshii aan fariistay aan ilaahaygii ibraahim isxaaq iyo yacquubow ilaahayo maxaa la dhahaa meesha jidka xaqa le igu aadi aan eray wixii ka dambeeyey waxay ahayd oohin iyo baroor ilaahaygii xoogkii awooddiisii baan dareemay waan ooyey waxaan yareeyo maxaa intaas iiga maqnay ilaahay intuu dadka u jiro waa minute bilaadanka ayaa waxay yihiin ummad baqaya oo weydiisan karin marka qalbigaygii dhan iyo waxaa noqday ilmo yar oo aabbahood arkay oo aabbahood dareemay oo waxaa noqday iska ooyey oo waaban ilaabay hooyadii wixii kale xaggee iga aaday xaggee iga jirtay intaasoo dhan maxaad iigu imaan weysay aabbow baan ku ashay waxaan dareemay ruuxiisii waxaan dareemay culayskii oo dhan iga baxay oo aan meel iga qaadmay waxaan dareemay qof awal agoonoo waxba haysana ahaa laakiin waxaan dareemay inuu ilaahay carshiga uu markaa u yeeratid adiga dhan ku bedelayo daas waxaa ma ahaa si kale oo wiilkii waxay igu dhaaftay iyo farxad adduunyadii dhan ba waxay ila noqotay xataa inaa adduun joogo inaa aakhiro joogo midna ma dareemayn marka ilaahay qofka hadduu weydiisto uu yiraahdo ilaahu ii imow minute buu qofku ilaahay ugu imaanaya daqiiqadaas uu qofka u yeerto uu yiraahdo ilaahay ibraahim isxaaq iyo yacquub oo ii imow ilaahay qalbigaada haddaa u furtid oo aadan maxaa la dhahaa xaqnimada haddii ilaahay aad isku dardartid xaqdarrada iyo xaqa haddaa isku
dee ma ku caawinayo laakiin markaa tiraa ilaahayoo ilaahay xaqa raadinaya ilaahay wuu ku imanayaa ilaahayna wuu ku saacidayaa qof kastoo soomaali ahna waxaan kula talin lahaa inuu yiraahdo ilaahayoo jidka xaqa la igu toosi wax weyn ma ahan afkaagaad ilaahay ku baryi kartaa maxaa la yiraahdaa waa wax ma aragto qofku u baahan yahay sababtoo wax ku noolnahayba inaan ilaahay caabudno aan ku dhawaano haddii ilaahay ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub uunan ahayn ilaahay caabudada ilaahay ma ahan marka jira صح waad garan kartaan in intaasoo nebi ayna qaldanayn waa inuu jidka xaqa ku tukadaa صح صح qofaa wuxuu yiri inaad ku tukati maaha waa inaad ku tukataa natiijada aa og tahay ani kuma tukanin ma dhihin ciisow ii imow maan dhihin maanan ogeyn laakiin waxaan ogaa inuu in kitaabka ku qoran tahay ilaahayga ibraahim يعقوب asxaabii xataa nebiyadii ibraahim iyo ay dhihi jireen waxaa ilaahigii isxaaq iyo yacquub ay dhihi jiraanaa ogahay xataa marka laga tago islaamka christanka iyo muslimka marka laga tago yuhuudda xataa inay saas dhihi jireen marka jid inay tahay intaasoo nebi ah oo ilaahay soo diray oo isku wada faamil ahna ilaahayna jid dheer buu qofka horta mariyaa si uu ogaado waa inuu asadan ku hurgufaa oo horta hore aad meel nadiifa usoo timaado qofku waxaan dhihi lahaa yuu cabsi ugu jirin saxka baad ha weydiiyo ilaahay jidka xaqa waa tukaday mar labaad waxaan dhahay ilaahu igu toosi jidkaaga ku yaa igu toosi ummadaada ummadooda tahay igu toosi oo meesha waan ducaystaa haddana waxaan arkay ducada in wax badan lagu helay waan ducaystay maalintii dambe ilaahay aroortii baan kacay waan socday waxaan galay guri weyn oo weligay galin guriga markaan galay waxaan arkay meesha waa kaniisadba waan kacay meeshaan tegay dad badanaa meeshaan jooga aniga marka sababta aan meesha u galaayay iyo ma garanayo markaan fariistay baan waxaa bilaamatay service oo serviceka churchka marka meesha aan sii fariisan waxaan dhahay waxaan qof islaam baaba tahay maxaa meesha ku fariisiyo anaa isla doodaya waan fariistay markaasa meesha markaan fariistay saa salka u dhigay meeshaas waxaa igaga soo baxay iftiin weyninkii ka batay maxaa la dhahaa awood aanan weligay arkin iftiinkia igu daarmay nalka dhana indhaha iga qabtay waxaan dhahay meeshan maxaa u joogaa markaasu cod weynaa maqlay oo dhahaya dadkaygu waa kuwan yaab shiinayshani inaan dadkii waxaan damcay dadkii dhan ku dhaboodo oo aan shushubiyo haddii lagu yiraa ka hore dadki ilaahay waa ku hanaa يا فرحت درادي يا سمينا اساس waxaas leedahay maanta finally waad heshay هي meesha araadinaysa intaasoo dhan wixii laak maaragtay kaamera camal la damiizim haddana iga tiri meeliyaan fiiriyey dadka dhan aan fiiriyey meesha fadhiyaan waan tartiib baan usoo baxay albaabkan ka baxay dadaa serviceka seebu ahaa idhahaya intii serviceka socotay oo dhan aniga meesha waan joogay laakiin waxaan ku miid gareeyay meeshaas ilaahay joojka dhexdiisa igeeyey halleluuya igu tusiyey marka waan meeshaan tegay kitaabkaadaan soo qaatay bible studyaan bilaabay dadkii saasaan ku bartay maxaa la dhahaa waa su-aalo badan aan qabay iskama gelin masiixiyadda su-aalihii ku weydiiyey ilaahay baan su-aalihii badan inta badan weydiiyey dadkana waan weydiiyey marka waxayba noqotayba wixii aan raadinayay oo aniga intaasoo sano aan raadinayo xaqa ilaahayga aan nooca aan raadinayayba ilaahay aan dhahayay kaas weeye aniga ilaahaygaygii baaba halkan iiga udhexeeya noloshaada yes
waxa badan baa iska kay bedelay sababtoo ah awal qof confuse ah oo ilaahay raadinayso dhiban oo maxaa la yiraahdaa hadba mar naf dadka raadinaysa ahaa wax dhiban qof dhiban oo ilaahay la socon runtii mar walba su-aashaas waan jeclaa in ilaahay xasuusiyo sababtoo ah waa la ilaabaa markaa dhibanayd markuu ilaahay soo bixiyo laakiin ilaahay dhib badan buu naga soo bixiyey sababtoo ah ilaahayga aan aaminsannahay oo dunida dhan aaminsan tahay waxa weeye ilaahay oo dadka nolol siiya maxaa la dhahaa john 3:15 way ku qoran tahay waa qof kastoo ilaaha aamino wuxuu siinayaa nolosha daa'imka nolosha joogtada ahaa badbaado aamin badbaado weeye marka Soomaaliga la fasiro marka qof badbaado la siiyey asagoo nool waa farxad cajaa'ib oo aad u weyn marka haddaad duni kasta iyo sulka lagaa jarayo xataa ma kala jeclin sababtoo ah waxaad haysataa wax aad ugu kalsoon tahay meesha u socotidaad garanaysaa waxaad tahay waxaad caabudaysaad garanaysaa dadkii kasta u malaysan inaan nin bini'aadana aan caabudno laakiin annaga masiixiin haddaana waxaan caabudnaa ilaahigana abuuray annaga waa idinkana idin abuuray ilaah saddex ilaahna ma aaminsanin waa hal ilaah oo adduunka dhan abuuray oo nebiyada ilaahay soo diray marka ilaahaas inaad isbarataan oo ilaahaas uu ku yiraahdo gabadhaydiyaa tahay uu ku yiraahdo waan ku badbaadiyey culayskana waan kaa qaaday intaas hadda lagu yiraahdo filan ahaan buu u malayn lahaa run xataa uma malayn lahayn realitiga markii qalbigaaga la bedelo oo adiga dhan lagu bedelo oo adiga dhan aad si kalna waad aaminaysaa ilaa dhexdaadii qalbigaagaa laga shaqaynayaa walwalkiyaa lagaa qaadaa wixii oo dhan waad aaminaysaa laakiin markii qofka looga sheego oo la yiraahdo wallahi aniga wax badan baa iga bedelmay ma rumaysanaya laakiin qofka markii wixii ku dhacdo wuu rumaysanayaa sababtoo isbedel baa ku dhacay wuxuu dareemayaa inuu loo jawaabayo in maaragtay ilaahay hadalladiisiibaa ereyga markaa akhrisid anuu iga hadlaayaa baa isleeda waaba annagaa naloo qorayba annageeba ereyga wuu naga dhex shaqaynayaa maxaa la yidhahdaa waxaad noqonaysaa qof caawa haddaad dhimatid aana naxsanayn waxaa u socdo garanaya waxaa noqonaysaa qof ma aragtay maantay wiil baa igu yiri saas hadduu ilaahay ma aragtay uu saas kuugu fiican yahay saas aad ugu faraxsan tahay maad ilaahay oo saas samee oo saas ii samee maa dhahdido ma aragtay sidaan ka baxdido waxaa ilaahayna ma la jirrabo amarna lama dhaho saas yeel saan yeel ilaahay annagaa u baahan annagaa caabudayna ereygiisaana ku dhaqmayna nolosheennana waxaa weeye wax aan annaga ilaahaygiina isagaa yiri annaga ma dooranin asagaana doortay oo ma aragtay awood aan ku dooranno ma lihin laakiin waxaan leenahay awood aan ku adeecno oon raacno oo ma aragtay ku istaagnaano jidkiisa laakiin ilaahay baa awooddiisa wax walba ay ku dhacaysaa awoodda ilaahayna qofku inuu yaqaano maahana loogama sheekayn ilaahay markuu ku xoreynayo hal qof keliya iyo waxaas maaha waa inaad dadkoo dhan daacad u noqotaa waa inaad dadkoo dhan waaridka xaq ay leeyihiin dadkiis asxaabtaada xaq bay kugu leeyihiin sababtoo qof qarsoon oo sirtiisa waa dhegaysanaysaa xaq ma aha moogtahay hadduu tahay wuu iska taajiri lahaa waxaasa kugula hadli lahaa marka laakiin markaad joyce siinin dee qofkii wuu iska caytumayaa waa dhegaysanaysaa waxaas xaq ma aha runtii waxaan ku waanin lahaa haddaa masiixa soo raacdeen isku talaabtiina qaata oo dadka daacad u noqda aniga mudda igu qaadatay laakiin mar kasta go-aankayga wuxuu ahaa inaan maalin uun u sheego maalintay noqotaba
marka waan u sheegay dadkii wiilkii aniga qabay baa dadka u sheegay oo dadkoo dhan u sheegay dadka markuu aan arkay inuu dadka u sheegaayo baan ana hooyaday waxay kale hooyaday waxaa tidhaha bal hooyada ku daran banaanka marka hooyadii baan u sheegay dadka kalaan u sheegay faamiladeyda u sheegay dadka asxaabteenaan u sheegay qaarkood waan u tegay face to face aan ugu sheegay qaar maxaa la yidhaha teleefon baan ugu sheegay markaan runtii sheegayna iyaga ma faa'iidin anaa faa'iiday sababtoo ayagana way faa'iideen oo waxay ku faa'iideen runtii runtii heleen ama raacana miya laakiin aniga ahaantayda faa'iido weyn ay ugu jirtay runtiina waxaa ugu dhacay dadkii markii hore shoog ku dhacay maalin markii dambe dadkii way iska soo wada qaboobeen dadkii way soo wada noqdeen qofba tartiib bay igu wada yimaadeen kuwa awalba aan dee awalba fule iska ahaa oo dadka ka baqa waa iska jiraan marna ani iisoo dhuunta marna xagga u dhuunta waa jiraan laakiin ugu soo xadgudba caqiidadeyda ma jirto qofka aragtay taasna waxay ku dhacday maahan aniga awoodeyda ilaahay awoodiisa iyo runta aan sheegay marka qofku gadaal wuu kaa xaman karaa wuu kacayn karaa laakiin ani hortayda waxa yimid ma arkin oo caynay ma arkin waxa idhibaya ma arkin runtina waa ku faraxsanaa inaan rabbiga qirto sababtoo wax iga dhabay ahayd iga daacaday ahayd waxaan dadkayga la jeclahay aan u sheegay inaan u sheegay ahayd ognahay laakiin waxaan rabnaa dadkana fiirsanaya dad aan si fiican kuu garanay ama hadda kugu horsa ama hadda kadib maqli doono ayaa jira marka waxaan rabnaa inay faahfaahintaas ay helaan waxa qalbigooda galaa goormay qaadatay goormay soo sheegtay goormay kana marka wixii aan kusii weydiin si ugu fududaata ayagana waa su-aal fiican isweydiiye way tahay dadka waxaa aniga maba kala harinba markaan sheegay kulli dadkii kale dhan waa wada sheegay awalba qof baqaaye markaan sheekada idinka bilaabo ma ahayn dadkaan ixtiraamayay marka waxaas dhahay qaar inay ogyihiin qaarka kale ogeen waaba caabe dadka kulligood waan wada gaarsiiyey wayna ogyihiin dadka magaalooyinka aan deganahay oo dhan waa u sheegay waxaan ku dhahay sorry maxaa la dhahaa shaqaynaa joojiyey dadka daacad baan u wada noqday maxaa la dhahaa masiixiyadayda way igu yaqaanaan hadda aan shaqaynayo maxaa la dhahaa meeshaan iskuulkaan tago dadku way yaqaanaan shaqada aan shaqaynayo meelahan tago intaana teginaaba layga sii hormariyaa waa gabadha halkaa joogto way ogyihiin xorowdid mar haddaa xorowdid wixii kale ilaaha sii wadaaya waxaan xasuustaa mar aan is aragnay soo booqanay 2018 mar aan waday oo xaafadaha na soo tusaysay America kugu imaanay dadka dhan inay ku yaqaanaan dareemeynay oo qof walba ku soo dhaweynay marka qof walba waxa waa marka adiga as xoreyso oo daacadna aad ka tahay qof walba kugu ixtiraamay wax adiga aad tahay taasaan ka dareemaa faa'iiso aan ka dareenay markay nala socotay qof walba ka hormaad uu yaqaanay qofka ay tahay iyadana waxa waaye way soo dhaweynaysa wana ixtiraamaysay wala isku ixtiraamaya waxyaabaha la kala aaminsan yahay haddii qofku kugu ogaado waxa ay tahay waxaan aad ugu faraxsanahay in maarta xorriyadna aa helayso si faa'iido ay sheegtay adna waa xoroobaysaa dad kaleetana runtii ogaanayaan runtii kuula dhaqmaya marka laakiin qofku wada faa'iido problemka jiro waxa waaye dadka intay qayb is sheegaan qof u sheegaan inta kala qariyaan dadku waxay ku leeyihiin hallo aniga ii sheegtay ninkaaga ahay ama naagtaada ahay ama hooyada ahay soo qof dambe ha u sheegin aniga haddaa ii sheegtay qof dambe ha u sheegin marka dadku way yeelaan marka koritaankaaga ayaa halkaas ku istaagaya qofka waa inaa inta ummad aad taqaanid ilaahay waa ilaahay daacad ah oo ummadda daacad u ah marka ilaahay intuu kugu dhex jiro dadka qaybaan ka qarinaya halkaa meesha ma aadaya halkaan qaybtaan saanta dadku waa inaad daacad u noqota waa inaad koronka la qaataa waa inaa soomaaliya xamar haddaa dhex taaginta aad tiraahdaa masiixi ah qofkii masiixi soo raaco ha ku tashto masiixiyaddu mar walba cross ay tahay maalin walba tahay jidkaa lagaaga hor imaanayaa tareenka diyaaradda adoo saarana lagu imaanayaa adoo
aroos ka dhex niikinaysaa lagu imaanaya waa inaa qofku uu sheegaa mar kasta shaqooyinka ugula jiraan boqolaal anoo la i kor taagan yahay ayaa la i weydiiyey anoo ma aragtay wax walba action kastaan ku sameeyey marka ilaahay wuu fiirinayaa inaa asaga ku kalsoon tahay iyo inaa adiga iswadid laakiin markaad aad hooyadaa u sheegto ay ku tiraa hooyadaa hee ha sheegin ama nankaaga u sheegtay oo tiraa uu ku yiraa haye anaa ii sheegtee ha sheegin ma ku koraysid ilaahay waxaa weeye ilaahay inaad qof walba qof kasta iyo meel kasta wejigaaga saa u wadatid oo kale uu noqonayaa واساس فايزو waxaa isoo xasuusay meel kasto aad joogtid marka tire inaa rabbiga aqirato waxaan soo xasuustay maalin shaaniyo oo la joogto walaalo badan oo muslimiin ah oo dumar wada ahaa ayagoo ku wada jiro meel jika ah oo cunto wada karinayo baa waxaa la isku soo hadal qaaday masiixiyadda mindiil wada qof walba wuxuu jarjaraa qof wuxuu jarjaraa salaatada qof wuxuu jaraa wax ka kale meesha dhan ay buuxdo markaas diinta isku hadal qaaday waxay isdhayeen nin hebel mataqaanaa ahaa haddii uu waa nin oo cadaan u ahaa haddii uu ninkaasi islaam noqon lahaa waa jannada waa naga hormar lahaa jannada nagu horeeyo noqon lahaa markaas waa kristaan markaas shaani intay soo bad waxay tiri ma kristaan baa ahaa sida isagu uu yahay annagana ahay ma kristaan baa tahay mindii kor dalqad la wada naxay haddana mindii tartiib loo dhigay bal masiixiyad maxaa hore laga bilaabo masiixiyad wax nooga sheegba maxaa ku noqotay masiixiyad waxaway qalbigaaga rabbigu wuxuu soo gelinayaa muleynayaan in laga cararayo ma ka cararayaan dadka way rabaan waxa tahay ina ogaadaan cad u ahaatidee rabaan aad iyo aad waa kuwii mindiyaha watay faa'iido mindiya meesha la taagnaa waxa waa jika lagu wada jiray war mindiya inta iska dhigeen ay ku soo shimuumeen ay dhahay war masiix maxaa ku noqotay bal noo sheeg masiixiyada waxay ahaayeen 400 oo qof ay ahaayeen markii dadada aan imaanay meesha fariisanay anigii shiino gabar kalena way imaatay oo masiixiyada mar raba magaceedina inta ka sheega waa salaamaya aan jeclahay gabadhaasina markay timid waxay tiri waxa la oo adigana ma iga ku jirtaa markaas ha anigana iga la mid ah tiri marka saddexdeeniba maalintii qadadiiba way cuni waayeen dadku way fariistaan waxay ahaayeen noo sheega noo warrama noo sheeg 400 oo qof oo walaacad aniga aan 20 qof gabdho jikada kula jirnay iyo gabadha saaxiibta ee masiixiyada inta ii timid jikada kula jirnay mindii waaweyn cunto ku karinaayeen aan farta ka saarnaa dhahay kristaana ahay crossna way xirnaa xabad marka dadka ha ka baqina rabbiga ana la jiro wax naga qaada mal saacadaada ka hor ma dhimanayso ilaahay waqti uu qaado rabbiga marqaato uu noqon isku tashata صح وانا adiga nafta masiixiinta ku la saaxiibta waana kaniisada isku xirtaa waana dadkan ka maaranta ilaahay ajibti ya oo fiirinina hadii waa quusaysan ya ma aaminsan qof masiixiya oo isku tashtay inuu dib la kulmaayo laakiin qofku hadaa dadka doodoontid shaydaanku uu ku og yahay waa dhibaato la kulmaysa waa lagu caynaa because adaa wax ka rabtid waxay rabaan intay masiix noqdaan inay gabar ka guursadaan waxay rabaan inay maxal dhahaa shaqo ka helaan inuu aragtay maxal yiraahdaa wax u sameeyo qof muslim no qof masiixiya dunidan dhan moodo masiixi waa masiixiinta saaxiib masiixiinta la joog kaniisada ku xir maxal dhahaa dadkan hadaa ka baxday amaansi waxaa aaminsanahay dhibaatada annaga isku keenay صح waa lagu sirqoolayaa waana ugu dambeyntii waa lagu dilayaa because waxa ku qoran tuugga wixii u yimaaday inuu farxadda kaa qaado marka labaadna inuu ma aragtay uu ku dilo marka ugu dambeysana ku baabi'iyo marka haddaa adiga aad dunida rabtid inaad wax ka rabtid wadaad ay tahay dunida way ku silcinaysaa laakiin qofku waa inuu ilaahay iyo dadka ilaahay uu isku xirnaa uu ku xirtaa uu ka waxaystaa hadduu uu meesha ma aragtay qiyaamo iyo dhibaato iyo la soo galo hadduu la soo galo wuu dhibaatoonaa sababto waxa adiga kugu dhex jiraa ku dhibaateynaya maaha qof kale oo qof kale joogo oo qof kale ku siiyo marka aniga dadka waxba ugama baahni waxna ugama baahni hooyooyinka iyo dadkayga iyo faamiladeyda waxaan ku dhahay gurigeyga xataa salli lama soo gelin karo dadkayga halkaas iigu dhagan صح qof kasta gurigiisa waxa uu ku caabudayo ku caabudo aniga haddii salaamayo wala family nahay ha islaamo qofka ii yimaado waa welcome
laakiin waxaa caabudaysa guryaha ku caabud aniga laakiin walaalnimo iyo wixii waaridnimo iyo ehelnimo iyo saaxiibnimo ugu nimaano aniga ma ogtahay cida islayfa ma ana ka imaanin islayfna ani laftigayga xaqaan leeyahay adna xaqaan leedahay aan kala qofka hadduu xaqiisa sheegto qofna kuma soo waxayna laakiin Soomaalida dhibaataysan waa dadka wax ka raba oo dadka waxay oo dhaa ha inta ku tuko inta ku sujuud oo inta ma fasayo anigana xaqaan ku tukanaya wax la isku ma qaqaso ilaahayna isku qasnaan ma aha صح ilaah waxa weeye oo nadiif ah oo holy ah هللويا هللويا آمين فإذا سوى وناسنا ودكتي وأنا وحواي تلا أد وناسنا وابحسي وديرجلنا ويكجرتا أنا أد بنقول فرحسنا كله مركن وحاربا you are on fire وحن أركا الروح القدس كأنه كابوح ولا بدنا ما هو يفريان أو كداونا أيه هو حاليا بكداونا أيه هذا إجرا مسلمين هو مسلمين مسيحيين يكون ملحدين هو هذا ندقي سنايو يكون كنا ندقي سندونا بقى محات تلا أحد وسجدين لهيدا نداونا أيه صح بليز لا قيبسو حقل بيا كجرا مسيحيين تعني وحا ليه لها إن إلهي هدوا أتراعدين وإنا كروسكي نقادتان وإنا كتشتان وإنا إلهي كدواتان وإنا إلهي دودونتان كتابك أخرستان إلهي ونغفلين كتابك حق إلهي وإنف إلهي ونغفلين إلهي إنا أدواتان dadka hadda caawisaan faamiladiina dadkiina caawiya dadka dariska u gargaara ummadaha caawiya laakiin xumaynina adinkana naftiina ha xumaynina oo daacad ahaada ummadda ma aragtay oo waxaad tihiin ilaahay baa representative u tihiin so haddaa wax xun laydinku arko wixii xun ilaahay ma ka imaan هذا ما عرفت ذاتك حميسان أو أنتو نعاية أصير نعاية إلهي ما مثليسان هذي أنا ما عرفت أنا 50-50 هاي حاجة أنت كنت كوي أنا ما قالوا عنكو عركة قالوا ريا تكوك وانت لا دهار السلاد كجلاي ما فهم هو ما عرفت إلهي أنتو كسر ضافي ما كان ماشي مع عيالك دوكسي جيسته هو ساعة قيامنا أنا كمان يقال أوكي إلهي ما لا قيامك صح waxaa isku duubnaada oo masiixa raaca ama muslimkiina la jooga oo dadka xibinina oo dadkaas silcinina walaalaha dhihi lahaa hadda muslimna waxba kaama qaadayo dad cadaan ah iyo dad ajaanib ahna waxba kuma baan ilaahay kugu filana haysataa ilaahagaas dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa ku dhaqan oo ku duuban walaalaha masiixiinta waxaan arkay xataa ما صعون كران وحما قبسن كران وحاسمع قفك شقتك مقالة هذا قال الإله هذا عقيدة هذا الجوج كلتك ما عرفت صح يا مقالة هذا ما عرفت دتك عاوي ودتك قف أساق وحسمين كرا because إلهي هذا ترادد وحاسا أباهنا وحاسا ربا وحقول بوكو سمينا so أبيك بوحسن دتك أنا بروحي وحاود أقول هذا هنا دتك عاوي صح تحضرنا كان أجبتنا بيتر إلهي وحكونا دا قدال في رسيدوات قوسيسا ما إيه وضع وكوضا واحد دونيدا ما فيرين كرتان هذا دونيدا ما أنت ترى هبلو ها ولا دعيا وانا لا تشويا مثلا إلهي في سنة وإن لا تحقليا أنت قف مسيحي عدو أنت مسلمين وتكتب عاد سكدك تقف مسلمين وعاد مسيحيين تعيس إلهي وكو مقليا صح waxaa inuu u dhaqmo ilaahay ama qof shaydaan inuu noqdo wax u dhaxeeya walahi ilaahay laba siid looma wada adeego mid baa nacaysaa mid baa jeclaanaysaa waa sax ilaahay isku qasnaanta marka qofka dadka u timaadeen ixtiraam oo la joogtaan oo isku caqiidada noqoteen kuwa ama aragtay ka soo tagteen ixtiraama naftaada ixtiraam ugu horeynta ixtiraam ilaahay aduu temple of god waa aatiinu yiri adiga wax noolahay so temple dadanahay qof wasaq ilaahay ma qaadana waa uu ka ordaya wax yar muxuu dhex jiray mana dhageysanayo wax edab darra so wuu ogyahay waana dhimanaysaa dadkana way ku diminayaan oo dad waxa arkay
waxay dhaheen halkaan soo salaano intaa ka baxayo faamilkaygaan saas dhahayo faamilkaas waa filaan kartaa waana soo caawin kartaa laakiin hadday ogoleen inaad caqiidadaas kugu ogoleen waa inaad faamilkaas bye bye tirahdaa yes hallelujah kale ilaahay baa bye bye ku dhahay so labada mid dooro ya faamilka waxaana la yiri gurigii nabad ah gala laakiin nalmadii nabad ahayn taga kitaabkan si fiican u barta oo kitaabka la akhriyo kaliya ma ahane inuu naga dhex shaqayso waay yes amen inay ma aragto walaalka miskiinka ah oo masiixa ah ayaa walaalku ah kaas ma aragtay ixtiraam la joog la waxayso midkaan ku anfici waayo oo isku dabeecad ahayn mid ku anfacayo la saaxiib صح kaas ma aragtay isdhiiro geliya adiga mar walba afiline wax mar walba adiga afiline adiga xataa kii wax bixiyo noqo oo kii wax caawiyo noqo hallelujah hallelujah صح وارن امين واو amazing taladaada waa amazing marqaatigaagana maba ka dhargaya aniga malab waaye waa si fiican aan u dhageysanayna walaalahan waxaan rajeynayaa in ay ka faa'iideystaan waayo ruuxa quduuska ayaa ka dhaxadlay waa marqaatiga gabagabadii aan ku jirnaa haddii su'aalo kale aysan jirin hadalka ugu dambeeya waxaan siinaynaa walaashan Faa'iza inay maartay hadalka gunaanadka waxay ka tagtay ku gunaanado marka dhameysana sister noo duceey kabacdina waa gabagabadii noo aanaysa adoo mahadsan gabagabadii gunaanad ya ani walaalaha Soomaaliyeed oo wadankeena jooga oo muslimiinta ku oran lahaa haddii aan Soomaali wada nahay kulligeen waxaa weeye muslim iyo Christian iyo wax kastaba dadana waxba aaminsanayn aad tihiin waxaa ka weyn Soomaalinimada waxaa ka weyn ma aragtay nabadda waxaa ka weyn ma aragtay ani haddaan nabad idin siiyo adinka nabad baa helaysaan adinka haddaan nabad isiisaan aniga nabad baa helaya nabaddan waa wax naga dhexaysa waxaan idin dhihi lahaa ma aragtay iska daayo waxa dhibka iyo iscaynta iyo dhibaatada iyo isbaabi'inta wadankeena 30 sano ayuu ololayaa wuxuu u baahan yahay masiixa weydiiya oo aniga waxaan idin samayn kara ma jiro laakiin ilaah baan idin badbaadin kara ma aragtay intaas wuxuu u ololayaa waxaa waaye ilaahay baan qiran waa ognahay wadankeena wuxuu ku baaba'ay markii ugu horeysay waxay ahayd markii diimo iyo waxaas la keenay marka ilaahay ma ogola calankeena iyo dadkeena inay sii baaba'aan oo aan sii silacno waxaan idin dhihi lahaa ilaahay weydiiyo nabadgelyo dadkana iska daaya dadka ha dhibinina ha xumaynina wadanka iyo aan kusoo noqono annagoo dhan aan dhulkeena dhisno iska joojiya dhibaatada iyo waxa jira ahaan haddaa aniga kule xaqay igu tahay haddaan masiixiyadaha inaan idiin sheego mana iga ahan macnaha waxaa idinka rabaa iyo waxbaan idinka doonaya laakiin waxay iga tahay dadkaygii ehelkaygii meel kastoo joogtaan waxaa weeye meel kastoo joogtaan ilaahay wuu joogaa wax kastana ilaahay mahadiis weeye waana laga baxayaa dhibka laakiin dhibka annaga isku geysanay baa ugu daran oo ugu waxaysan hala toobad keeno kan walaalihiin u hiiliya walaalkiin kale kan edabta daran iska qabta oo maaragtay qabiil ahaan ha ula jirsanina marka dhulkii wuxuu u baahan yahay ani waxaan dhihi lahaa inay dhahaan ilaahay Ibraahim Isxaaq iyo Yacquubo xaqa nagu inay dhahaan dadka baan dhihi lahaa marka haddaan ilaahay la helin nabad ma jirto weligeed shaydaankaasa na wadaayo oo na baabi'inaayo oo isku kaaya diraayo maaragtay walaalaha Soomaali saasaan ku dhihi lahaa walaalaha masiixiintana waxaan ku dhihi lahaa meel kastoo joogtaan kitaabka barta ilaahay u dhawaada walaalihiin u duceeya cusbadii dunidaa tihiin maaragtay ilaahay waa layrka dunida hadaminina oo iftiinkiisa wata gelinina u naxariista kuwa kale oonan ahayn masiixa oo dariska saaxiibada kulli u naxa oo u naxariista oo ma aragtay waxay idinka muuqata masiixiyadeena oo ma aragtay habeen iyo maalin ilaahay qalbiyadeena uu garaacayaa wuxuu leeyahay dadkii marka
dadka ilaahay important ba ilaahay u tahay oo dadka ilaahay wuu jecel yahay annaga keliya mana jeclo laakiin annaga wuuna doortay ilaahay dadka oo dhan wuu jecel yahay u naxa u duceeya laakiin yee adinka idin jiidani adinka ma aragtay ku iftiima oo iftiinka u geeya oo u waxeeya oo u duceeya oo laisku dulqaato kaniisadeennana bara u duceeya ma aragta nabadeeya haddaadan dhisi karin waa adi ha burburin waa talo aad iyo aad u wanaagsan aadaan kaaga mahadinaa walaalaha dhammaan na daawanaya caawa meeshan iskugu yimid markhaati furkan aad u wanaagsan waxaan rajaynaynaa inuu qalbiyadiina taabto oo dad badan oo Soomaali ahna runta ku helaan ku badbaadaan walaalayaal hadduu qalbigiina taabtay nala soo xiriira haddii aad doonaysaan Bible-ka shaan nala soo xiriira haddaa su'aalo qaas qabtaan nala soo xiriira mar walba waa idin jecelnahay annagu xaggan waxaan u fadhinaa waxaanuna adeegayaasha masiixaan u fadhinaa waana idin jecelnahay dhammaantiina waxaan rabnaa Soomaaliya oo dhan inuu gaaro injiilka waayo isaga kaliya ah jidka jannada loogu tagaayo kulligiin inaa badbaadaana ilaah idinka baryana waa idin jecelnahay dhammaantiin aad iyo aad badan ayaa uma mahadsantiin inta caawa dhan nala joogteen nala fariisateen iyo sii qaybiya maxay ahayd subscribe ku sameeya markhaati furkaana meel dheer ha gaaro dadka dhan sii gaarsiiya waayo way u baahan yihiin dadka inay ogaadaan markhaatigan faa'ise bixisay faa'ise aad iyo aad ayaan kaaga mahadinaynaa adigana markhaati furkaan nala qaybsatay waanadaas